السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تقدرنتي قيمة نجا مدن وولالكينا نوردين يونس شيخ نوكم قعدير نوردين ألتا أما سأوت قناة بعلتا 244 كانال كمان تعاوها مرتي أنو نقضي عن ما أنقول جيسا أقول صبغضي هو جيسا فرحان وحاوها ويل داير آدي داير أو حدنا دروله مركا فرحان وحكا شقي جري باورتا sida soo qaado ama baabuurta xooliga ku socdo ka soo qaada ma huwa ilaa iyo ka shaqeeyo meelaha dadka yaqaano ilaa iyo Mandheera dadka Kismaayo kulligu geen jiray marka Farxaan waxa ku dhacday dhacdada ku dhacday Farxaan waxay ahayd dhacdo aad u xanuun badan oo isbitaal uu la galay kadib ilaahay mahadii waxa inoo suurta gashay inaan gurigiisa aan ku soo booqano maadaama uu dhibeysan yahay maanta cid la joogto malaha kaligii waaya sariir jiifa markii aan Farxaan u imaaday hadalada aan weydiiyay waxa ka mid ahaa in nolol maalmeedkiisa maalinkii uu hela inta kale maadaama aad Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal markaan magacaygu ku bilaabo Farxaan Mukhtaar Cabdi ayaa la yiraahdaa Farxaan Mukhtaar Cabdi nin darwal baan nahay oo xamaalanay xooggiis xamaalanay ayaan nahay marka nin darwal oo socodsa oo ahay oo muddo 6 saacad adeega 6 saac habeenimo ay tahay oo safar ku sii wato meel madoogash la yiraahdo agteeda soo maraya shafta ayaa xabadaysay aan aqoon aan u lahayn markay xabadeeyeen waa ku dhibtoodi halka bay iga gashay inta iga baxday kadib isbitaal la cararay meesha aad baan ugu dhig baxay isbitaalka kadib Nairobi isbitaal la cararay markii isbitaal Nairobi la cararay isbitaalkan in muddo ku jiray oo ku yar rafaaday rafaadki markaan ku yar rafaaday hindihii waxa la yiri in ay magaceeda indhahan meesha ku waayay hindii markaa meesha ku waayay operation baa lagu sameeyay waxa lagu yiri dalka dibadiisa dabiib waa loo helayaa sida dalka Hindi oo kale marka ayada anna marka miyahay oo ruux oo tabarta Hindi ku aadi kara miyahay halkaan baan iskaga dhibaataysanahay dibkii noloshii amba magaceedii aan maareyn laahay oo daawaan u baahanahay caafimaad baa u baahanahay noloshii kalaan maareyn laahay sifaan indho ku raadiyo halkeeda iska wadaaf marka waxaan leeyahay muslimiintii walaalahay waxaan ka codsanayaa inay meel walba joogan dal iyo dibad nin kaligiisa damaanad qaadi karo dalka dibadiisa qaadi karo haduu jiro waa alxamdulillah hadii kale muslimiinta idil ninba intuu igu kare karo tabartiisa walaalnimo igu caawin kara intuu igu soo caawiyo sifo aan ku helo dabiib hindhii aan ku soo helo marka sida qoyska aan ka soo jeedana waa iska qoys tabariya waxa duunay haystaan male ninka u dhaqaaqay aniga ahay anigii hadii aan magaceedii dhibka u soo gaari ayagiya gacan ku dhacay oo waxantii waxa nolol bay haystay jirin marka sida awgeed qoyskii oo iska tabarrun iyo anigii oo dhibaatada ay soo gaartay muslimiinta marka walaaladii waxaan ka codsanaa dal iyo dibad inta joogtaba meel Allah meeshay joogan si muslimnimo ay ku dheehan tahay si diiran inay ugu soo caawiyaan halka lagu soo caawin kara waxa waaye Dahabshiil Mandheera lagu soo caawin kara gaar ahaan halka numberkayga telefoonka laga helayo waxay tahay waa eber 7 26 49 eber 8 72 aan markale ku celiyo waa eber 7 26 49 eber 8 72 walaalayaal intuu ilaahay magaceeda intuu ilaahay in gargaara inaad soo gargaartaan oo caawisaan aan iga doonayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.